magaalada Gurceel ayaa waxaa lagu sameeyay diyaarad casri ah oo dhawaan bilaabi doonto duulimaadyo heerkeedu sareeyo. waa diyaaradii ugu horeeyay ee Gurceel lagu farsameeyo. Horay haddaad u maqli jirtay diyaarad ayaa lagu sameeyay wadamada Mareykanka, Ingiriiska, Turkiga iyo dalal kale ayaa maanta arrinkaasi oo dhan waxaa ka dhiidhiyay oo farsamo lala tacajabay la yimid wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Gurceel. Diyaaradan ayaa soo jeedatay sida loo farsameeyay shacabka ku nool adduunka oo dhan, gaar ahaan kuwa Soomaalida. Ka hor ka hadalka warbixintan xasaasiga ah, wiilkan dhalinta yar ayaa codsanaya in muuqaalkiisa loo sheer gareeyo, like-na la saaro si uu u gaaro adduunka oo dhan, si loo ogaado in Soomaaliya gudaheeda ay ku nool yihiin dhalinyaro firfircoon oo awood u leh haddii ay garab istaag helaan in ay sameyn karaan waxyaabo waaweyn. waxaan jecelahay inaan soo saaro agabyo kale oo ka sii casrisan. walaalkayga Soomaaliga waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkayga ii sii sheer gareyso si uu dad badan u gaaro, adigana wax ka dhibime anigana waxba ii gashaa. Faysal Cali waa 23 sano jir ku nool magaalada Gurceel. waxa uu gacantiisa ku farsameeyay diyaaradan mucjisada xambaarsan. agabka uu ku farsameeyay kama uusan keenin dalalka hormaray, balse waa agab uu isagu hindisay isla markaana uu hal abuurkeeda la yimid. mucjisooyinka ay leedahay diyaaradan ayaa ah in shidaal aysan ku shaqaynaynin, isla markaana haddii ay cillad ku timaado iyada oo hawada ku jirta la cillad bixin karo. dhawaan Faysal ayaa qorsheynaya inuu gacantiisa ku samayn doono diyaarado nuuca dagaalka ah, taasi oo marka uu farsameeyo ay si tijaabo ah hawada loogu diri doono, isla markaana bandhig cajiib ah uu maalinkaasi ka samayn doono gudaha magaalada Gurceel. sidoo kale Faysal ayaa ku rajo weyn inuu marka uu farsameeyo diyaaradan uu u hibeeyo ciidamada difaaca Soomaaliya. magacayga waa Faysal Cali Xuseen ku sugan Gurceel. Gurceel waxaan ka hirgeliyay diyaarad oo caadi ah, diyaaradaha caadi oo kale la mid ah oo soconaysa. waxaan rajaynayaa insha Allah maalmaha soo socda inaan si casriyeeyo aan helo qalabkii ay ku duuli lahayd aan u dhameystiro qalabkeeda aan duuliyo maalmaha soo socda. diyaarad sameynteedu waxay u qaadatay 2 sano aan farsamadeeda waday. dad farsamo yaqaana way jiraan, marka u tagtid oo aad tiraadid waxa iga caaway diyaaradan sameynaya, qofku wuxuu ku leeyahay waa waalan tahay ama waxa wadid macquul ma ahan. qaarkood waxay ku leeyihiin waxa tahay bilineerka qarsan, mustaqbalka injineerka waxba naga doontaa ku dhiirigelin, laakiin waxa ku qabanayay laakiin ku soo hawshaad hore u wada. dadka qaarna waxay ku leeyihiin qof waalan baa tahay hawshaad wada harqaan la tahay ku eka hawshaada. diyaaradda qaabkan u sameeyay markii ugu horeysa horta degmada Gurceel lagama helo alaabaha u baahan tahay mar walba. dhibaato fara badan kadib waxaan helay baaladii mitirkii iyo waxyaabaan wax ku jarjara lahaa, kartoonadii wixii aan jirtay alaabtii waan hagaagsaday. kadibna ugu dambeyn Dinamo aan u gacanteeda ku farsameeyay oo Dinamo macmala ayaan farsameeyay oo aan duubay fiilooyin maara muddo dhan aan sameynayay. mar alle markaas uu sameeyay fiilooyinka maarta aan duubay mar waxaan ku xiray aan tijaabiyay ii shaqeeyay ayaa waxaan u qalab qaatay dhismaha boodiga diyaaradda. boodiga diyaaradda dhismaheeda waxay u qaadatay aduu muddo ilaa iyo 20 cisho aan dhisay, maalinba in yar ka sameynayay. maalinkii inkastoo aan shaqeeyo badan waxaan sameyn jiray habeenkii. marar qaar iyadoo dhan aan sameeyay ayaa haddana dib u furfurayay aan bilaabay hawsheeda ilaa iyo aduu 5 jeer aan ku fashilmay inaan kiciyo. waa markii lixaad markaan ay ii shaqeeydo ay caadi u socoto ay kacdo. caqabado waa kala kulmay dhanka bulshada iyo dhanka kale oo farsamada aan wax wado. dhowr jeer xitaa waxaan ku sigtay in mar koronto ay qabato, mar waxaad igu soo furato aan si fiican u xirin aan tijaabiyo istaaray mashiinkii ugu istaarmay, mar waxaad igu soo fakatay oo ay geesiga dhaawacday. hadda ka bogsooday alxamdulillah. waxyaabo kale aad u fara badanna way jiraan. mar xitaa anoo farsamadeeda wada colladeation igu soo dhacday ishiga dhacday maalmo dhan aan la jiifay. kooladii aan wax ku sameeyay indhaha iga dhacday aan toddobaad iyo wax ka badan la jiifay aan shaqeyn. intaas oo dhan caqabadaas oo dhan waa ka soo gudbay. maanta waa taa in diyaaradda soconaysa oo aan farsameeyay aan ku guuleystay. waa tijaabadii koowaad ee ii shaqeysoo socota. ma jirto waa diyaaradii ugu horeeyay ee Gurceel lagu farsameeyo oo nashqadeeda. diyaaradan wiiligi anoo yar ayaan sameyn jiray, waxaan hadda bilaabo ma ahan. waagan yara ilaa hadda yartaan maskaxdiisa uu buuxiyay mar walba inaan wax sameeyo. xitaa marar qaar hool anoo ii taal ayaan ka dhuuma jiray hawsha ii taal aan aad jirsi aan u soo sameeyo diyaarad mar aan dhaqaajiyo aan u farsameeyo. Faysal ayaa sidoo kale isku day guuleystay ku sameeyay samgas, taas oo ay la tacajabeen dadka ku nool magaalada Gurceel iyo nawaaxigeeda. agabka aan sameeyay kuma eka diyaaradda kaliya, waxaa la socda burjiko samgas ah u shaqeynaysa si casri ah aan u gacanteeda ku farsameeyay. waxay ka kooban tahay burjikadan samgaska caagada u jeedid 20 laha ee biyaha lagu dhaansado ama lagu shubto ama lagu qaad saliida sadu taqaanid, iyo labada caaga u jeedid midna waa biyo midna waa benziin iyo kuukarkii oo dib soo gudbi lahaay aan u gacanteeda ku farsameeyay. halkan waxa ku jiro waa benziin
سوجيت هوا مركي halka ka soo baxda naqaska benziinka soo galaysa benziinka ka sii baxay biyaha aade biyaha markay saa u gashay ka soo baxaysa waxay soo aadaysaa in burjikadii toos ay dib u shidaysaa u shaqeynaysaa xargaa aan iskula xiray waxa waay inaysan kala dhaqaaqin aysan kala sikan aysan dhaqaaq fara badan sameeyeen hawo beeldar ay sideen baasha saa lagu aariyaa waad bumbeynaysaa aariyayna halka saa u qabsanaysaa aariyeysana waaka waa basiid way sahlan tahay cid walba isticmaali karto rag iyo dumar intaba waa waxaan aniga gacantayda ku farsameeyay haddii maxay ahayd oo la gacan qabto laygu dhiirigeliyo barnaamijkan aan wado oo laygu garab qabto waxaan jecelahay inaan soo saaro wax ka tayo sareeya caagadahan oo kale aan u bedelo xaaman caadiga oo gaas ku jira iyo baaladan oo kale hadda mar walba waa tijaawatan tii ugu horreeyay waxaan jecelahay inaan soo saaro ayagoo bira caadi oo adag oo meel walba la dhigi karo aan wax halis ah iyo midkoodna aan lahayn aan ku badbaadiyo bay'ada abaaraha soo laalaatay wax sababaya waxa dhirta la jaraya mar walba dadkana badankooda 99% waxay isticmaalaan dhirta ay jaraan dalkana waa ogtahay waa ka warayda abaara fara badan ay ka jira abaaraha wax sababa waa jaridda dhirta iyo dhuxusha laga sameeynaya marka hadii laygu dhiirigeliyo arrinkan waxa ka qayb qaadan kara badbaadinta bay'ada waa markii ugu horeysay oo diyaarad mucjisadan wadato lagu sameynayo gudaha magaalada Guriceel iyada oo uu Faysal filayo in bilooyinka soo socda uu diyaarad toos ah hawada u diri doono isla markaana shacabka Soomaaliyeed ee gobolada dalka iyo kuwa dibadda isaga kala gooshayana ay markaas u adeegi doonto ilaa ay dhamaadka muuqaalkan hadii aad inoo helisay fadlan muuqaalkan like saar siina share gareey si uu u gaaro saaxiibo fara badan magacaygu waa Cabduqaadir Cabdullaahi Siisi